kusoo dhawow channelka Tab ee arrimaha ganacsiga iyo tiknoolajiyada mar kale iyo muuqaal cusub. U adeegso WhatsApp-kaaga kaydkaaga gaarka ah ee dukumentiyada, fikradaha, qoraalada, xusuus qorka iyo wixii la mid ah. Marka laga soo tago u isticmaalida WhatsApp-ka fariin qoraal iyo wicitaan cod ama muuqaal, waxaa jira dhowr adeegyo kale oo xiiso leh oo WhatsApp-ka leeyahay, sida ku kaydsiga fikradaha, qoraalada, xusuus qorista codka ama muuqaalada ah, dukumentiyada la sawiray iyo wax kasta oo kugu jira taleefanka. taas oo WhatsApp-kaaga ka dhigaysa kayd gaar ah oo laga heli karo aalad walba oo aad internetka ka soo gasho, computer ama taleefan. Si dhaqsi ah ugu kala wareejinta linkiyada website-yada, dukumentiyada, sawir saashadeedyada, screenshot iyo faylasha kale ee ku jira computerka iyo taleefanka adigoon u baahnayn inaad iska diiwaan geliso website-yo kale. Kani waa koox WhatsApp gaar ah adiga uun ku muuqda. Aan gudaha u galno. Fadlan hadda channelka ku cusub tahay subscribe dheh oo gambaleelkana furo sidaad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaaladina daawada. Asxaabtaadana la wadaag, commentigana nagu reeb qaybta hoose. Tab kala tasho wax walba aad tabanayso ee dhanka ganacsiga iyo tiknoolajiyada ah. aan samayno koox WhatsApp ku gaar ah. Soo kacso halka WhatsApp-ka taleefankaaga oo ka yaalo oo halka ugu sareysa email dhinaca midigtana 3 dhibcood ayaa ku qoran oo fur oo sida tan ayaa ku soo bixi doonta. halka ugu sareysa waxaa saaran new group oo ah waxa aan rabno inaan samayno. ku dhufo si uu ku geeyo kaydka taleefanada kala duwan ee taleefankaaga ku jira. waa kana halkaan ayuu noo soo qaaday oo waxa noo soo bixi doona kaydka kala duwan ee taleefanada ah. qof kamid hore uga dhufo ama xagga baaritaanka ku dhufo kadibna qor qofka markaas aad rabtid inaad ku soo dartid groupka. si farsamaysan magac markaas aad danaynayso oo aad isleedahay xogtaada isla markaas duu arko hore kamsi isticmaalaya aad ku dhufanaysaa. qofkan ayaan ku dhufanay. okay kadibna calaamadaas socodsiinta ayaad ku dhufan kartaa si aad qaybta xigta aan u sii aadno. halkaan ayuu noo keenay. halkaan macnaheedu waa maxay? waa inaad ku qortaa magaca aad ugu talagelayso kaydkaagan ku madaxa banaan. qofka aan ku darnayna waa ka saari doonaa dhib ma lahan taas. ku qor magaca waxaan u bixinaa kaydka sawirada, kaydka codadka, codka sirta, jadwalka shaqada, wax markaas aad xasuusan kartid. sawirada markaan dhamaynana magaca markaa dhamaysidna calaamadaas okayda ayaad ku dhufa doontaa si qaybta xigta aan u aadno. qaybta xigta ayuu keenay waa halka xogta kala duwan lagu kaydin doono ama computer ka timaado ama taleefan ka timaado. laakiin waxaan rabnaa qofkii aan ku soo darnay sida farsamaysan maadaama group oo kaligiis iska abuurmaynin idan hal qof aan lagu soo darin inaan bedelno. ku dhufa halka magaca uu ku qoran groupka oo halkaan ayuu ku keenin doonaa. halka markuu ku keenana hoos waxa ka arki doontaa inta qof ee ku jirta groupkan. 2 qof ayaa ku jirta. qof waa qofkii sameeyay, qofna waa qof kaydka taleefanada aan ka soo qabanay. okay qofkaas waa tiri doonaa si kaydkaani oo adiga uun kugu madax banaanaado. siga dul saar oo ku riix kadibna sida tan ayaa ku soo baxaysa remove dheh magacii waa kaasa oo okay siidhe. saa u jeedid waxa baxay magacii adiga uun baa ku soo haray. magacana waa bedeli kartaa hadii marka hore uu ka soo qaldamo wali maadaama admin aad tahay awood u leedahay. waxa kale oo bedeli kartaa loogada hadii kaydkan haduu looga ugu talagalay sidoo kale loogadana waa bedeli kartaa si markasta aad u xasuusatid. qaybta soo gelinta xogta aan tagno. galerigaaga sawir ka soo geli kartaa, dukumentiya soo geli kartaa, cod soo geli kartaa, taleefanadaada soo geli kartaa, camera wax ka soo geli kartaa. galeriga ku dhufo oo sawir kamid ah sawirada aan soo gelino. sawirkan oo kale isaga dhufo isla markaasna wuxuu noo soo qaadi doonaa qaybta kaydka. ku laabo qaybta xog soo gelinta oo sawir kale soo geli. sawir kale aan raadino. sawirkan gabadha wiilkiisa wata aan soo gelino. ku dhufo oo okay siidhe kadibna wuxuu noo keeni doonaa isla meesha kaydka ayuu nagu soo celiyay oo hadda 2 sawir ayaan soo gelinay. documenti ma soo geli karnaa? haa qaybta documentiga tagayadana PDF ayaa soo geli kartaa, PowerPoint waa soo geli kartaa, wax kasta oo xogaha soo gelin kartaa, cod xataa waa soo gelin kartaa. ka soo laabo waa kana xogtii oo dhan kugu jirta si caadi ah marka ugu laabatana sida kaydka taleefanada qof walba u raadi jirta ayaa u raadinoo kor kaaga soo muuqan kara oo kaas hadda waa noo muuqda oo hadda marka la ku dhufano xogtiisa ugu jirta. markaana bal aan aadno qaybta ku xigta
oo ah telefonkaaga inaad ku xiratid computerkaaga browser soo kici oo halkan browserka ugu sareysa ee wax laga baaro waxaad ku qortaa web.whatsapp.com magacaas ayaad ka hor whatsapp.com keligiis hayska qorin keligiis kuma shaqeyn doono lana waxaa la rabaa kan telefonka iyo kan in la isku xiro halka ayuu keeni doonaa dhinacan QR code ayaa kaaga soo bixi doona oo computerka leeyahay mobilkana saddexdaas gan markaa furtid wuxuu ku keeni doonaa WhatsApp web asagana soo saari doona QR code labadan QR code ayaa la rabaa in la istuso sida soo socota oo kale dul saar oo ku aadi labada QR code isku aadi marka isku aadisana computerka isla markiiba uu aqbali doonaa soo akhrina kin telefoonka markuu soo akhriyana isla markiiba wuxuu noqon doonaa in WhatsApp-ki ka furmaayo dhinaca computerka ama laptopka waxa tiraahdaa oo noo qaadmi doona isla markaasna WhatsApp-ki ayaa noo soo bixi doona kii telefoonka oo kaydka aan ku soo abuurna ayaan isla markii raadi karnaa xogta ku jirtay waa kaasa asaawli ugu sareeyay waa kan xogtii soo baxday xogta aan ku soo shubnay ayaa soo baxday noocyada kala duwanay magac ku qoray waa fiirin kartaa kaydka sawirada wali computerka xaqiis waa ka soo bedeli kartaa xogaa ka soo gali kartaa bal iyadoo xog laga soo gelinayana dhinaca computerka waa fiiri karnaa qaybihi kala duwan ayuu kor ku leeyahay meesha telefoonka hoos ku lahay photo video soo gali kartaa camera ama document ama content ama wax kugu jira telefoonka oo kaydadka telefoonka aad soo gali kartaa balan gallery ku dhufano oo desktop-kaaga tag ama download-ka qaybta wax laga dejiyo tag oo hal sawir soo qaado halkan sawir oo kale isaga dhufano kadibna open dheh inuu noogu soo dirayo qaybtii kaydka in kale ayaan fiirinaynaa kadibna okay sire wakana oo qaybta computerkan markaan ka soo gelinay anagoo isticmaalayna halkii magac oo noogu jiray telefoonkan ka soo abuurnay bal aan fiirino dhinaca telefoonka sawirka soo galay waa kana sawirka oo soo galay dhinaca telefoonka labada dhinacba waa uga jeedaa kan dhinaca bidix xigana waa telefoonka kan midigta kaaga muuqdana waa telefoonka waxaana ka dhigi kartaa meel aad ku kaydsato xogtaada kala duwan ee qaaska ku ah isla markaasna haddii telefoonka cilad kaaga dhacdo hal mar daatadan backup ayaad ku wada qaadi kartaa xogtaasna waxaan ugu talagalay qofka videoga dhameysta ama muuqaalkan dhameysta inuu helo si aad uga badbaado xogtan haddii telefoonka meelo kala duwan uga jiri lahayd inay kala dhumi lahayd waana dhamaatay waa mahadsantiin